بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض تراب ومسكين كي الله محمد عثمان علي خادوك النولها لبحي وحان إن شاء الله سوجدية موضوعا كعضون كان بركيسا كسابسا دقان كصومالي دا إيتوبيو شركي كدعي مريكان كيسودن لندن إنان سودوينو كنا فرحسان نحي lana daahay oo laga daahay oo ahayd mar hore in la qabtaa waxaan insha Allah aan soo jeedinayaa horena soo jeedin jiray salaadiinta ugaasiyada garaadada culimada siyaasiyiinta deegaanka u dhashay inay hal mid noqdaan waxaan si gaar ah ula hadlayaa garaad Umar Suldaan Maxamed Bade iyo suldaan kasta iyo garaad kasta أنا لاحظ يا يعني سيجارة لما كان ضياشة ولاحظ يا الشركة أجيب أخوك قبتين وتكون محسنتين وسود وينا ونكون أحسن هاي لكن شركة عندنا إنه حويان إنه نقدر شر الصوماليات تجن إثيوبيا أردن أيكون يهين وحنا ذكر بهنا إذن كعاداتهم جرادي أما وجاسيدي أما سلادينتي إن أدهاليسان سلادين كستا يوجاس كستا يا ملاك كستا أو دجان كاستي أولي هاي أو قربها جوكتا كوا جودها جوك والله هيستيال يجو دم مالي كوا قربها جوكو إن كل جين إسكت معدان صوصارتان قوان كبعدنا سياسيين تا أي يجونا طلابة قاران يو شعب كودك عشانية دالكاس واحد تجي لبجر 2011 كي 2015 كي بالدمات كيسي إلا 2016 بدكاست waxaan soo joogay hal sano arrimahan u tagay insha Allah Facebook ka buuxa waxaan u tagay arrimo cajiiba inaan ka qabto deegaanka oo ku soo guuldareystay sida darteed deegaanka kama shaqeeyo dawlad waxa joogta qola mafia waxa jooga hal qoys baa ku amar ku taagleeya oo Ali Yusuf la yiraaho iyo intay soo kaxaysteen kalaabta ama ku soo kaxaystaan dariiqooyin kala duwan u baa ka taliya muhiimku waxa ka taliya Ali Yusuf laftiisa ayaan ka wada talinay inta Ali Yusuf ku aftirsatay filmilka ayaa ku amar taaglaysa nin kasta deegaanka jooga waxa weeyaan waa inuu soo gurguurto qof aqli loo baahno qof wax keenaya loo baahno waxaan rabnaa bulshada inaan badbaadino haddana wuxuu sameynayaa cadaawad aan tira lahayn cadaawad aan xad lahayn oramada la laayay isaga sabab u ah oramada dadka laysay isaga sabab u ah haduunan calanka oramada gubi lahayn waxa sama dhaceen haduunan dibka oramada isaguna bilaabi lahayn dibka ma dhaceen wiidin bahdilay Soomaaliyay qoys wiidin bahdilay haddana oramadu ku diray waa inaynu go'aan degdeg ka qaadanaa haddaan Soomaali nahay shacabka iyo siyaasiyiinta iyo maxaan kula salaadiinta garaadada culimada waa ina shacabka dhan aan kacnaa waa in laga mamnuuco qurbaha inuu yimaada waa in arsaba 500 oo qof ay ka degtaa waa in la soo leeskareeyaa wax alla wax dhib u geystay ninkaas umada u geystay waa in la dacweeyaa waa in maxkamad la saaraa isaga iyo kuwa saraakiisha la shaqeynaya garaad Umar garaad Maxamed Bade waxaan ka codsanayaa inay talaabada aan uga baahanahay inay la shiraan qabiil kasta oo Soomaali ah oo riyaadiyaan hal cod hal dariiq hal dhabe oo ninka iyo maafiisa loo dagaalo. Salaamu calaykum.